ma leedahay saaxiib aakhiro aad u kaashatid? ma leedahay saaxiib aad kala hadashid xaaladaada diimeed, cibaadadaada, ruuxdaada say dareemayso? saaxiibka noocaas ah oo aad u baahan tahay haddii uusan ku jirin saaxiibada, waxaad ku sugan tahay khatar. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha uu faray waxaa ka mid ah in qofku uusan la saaxiibin qof aanan iimaan lahayn. qofka iimaanka leh oo ilaahay ku xiran waa gaashaan, waa wehel dhab ah, waa qof aad marka uu ugu liita aad ka nabadgelaysid. dad fara badan oo noloshaan dhibaato ay kusoo gaartay, waxyaabaha noloshooda baabi'iyey oo karkaarka weydaariya waxaa ka mid ah saaxiib xun. wuxuu kaloo yidhi caysho milix la noqon qof aanan alla ka cabsi dhaba lahayn. caysho milix Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka aad wax wada cuntaan oo gurigiina taga oo gurigooda aad tagtid oo aad isku tihiin far iyo faraanti. sidaa daraadeed waqtigan khatarta badan oo saaxiibadu aad u xumaadeen, oo qof la isku hadlayaa uu yar yahay, oo qof sir ah u sheegay uu yar yahay, oo qof maaragtay aad ku kalsoonaad uu yar yahay, shayga kaliya oo aad ku gudbi kartid waa maxay? saaxiib ilaahay ku xiran oo taqi ah. saaxiibka noocaasa waa saaxiibka adduunkana sabab u noqonaya inaad liibaan iyo farxad iyo sharaf ku noolaatid, aakhirana waxaaba laga yaabaa inaad ku mutaysatid labadii qof oo harsanayay maalinta qiyaame harka alle maalin uusan har kala jirin, oo ahaa warajulaani wamra'ataanina oo noqon karaan taxaabaa fillaahi ijtamacaa calayhi watafaraqaa calayh. laba qof oo ilaahay dartii isku jeclaaday, ilaahay dartiiba isugu yimaadaan, ilaahay dartiina waa ku kala tagaan. qofka wanaagsan oo ilaahay ku xiran hanti dhab ah weeye. waxa ugu muhiimsan oo qofku uu ku soconayo waa aragti toosan. qof saaxiibka oo ku heliyeela, oo xumaanta ka ilaaliya, oo marka aad khaldan tahay runta kuu sheega, oo si dhab ah kuu jecel, ilaahay dartii kuu jecel. qofka saaxiibka noocaas ah ka baqamaysi inuu ku ceebeeyo, inuu ku bahdilo, inuu sirtaada faafiyo, inuu khalad adoo ku socda kuu garab siiyo. laxjeclo dhab ah oo iimaan ku fadhida ayay saaxiibtinimadaas ku dhisan tahay. sidaa daraadeed ha la saaxiibin qof aanan dhiirigelin iyo cibaado iyo wanaag aada ka helay, hadalkiisuna uusan ilaahay ku tusayn. wabilaahi towfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.